بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة مبارك. خياري كسو دوادا مركله هي برنامجكي أقوني أوغال. حلقة تضبات كان وحينو دول استايق دوعنا دقالك بريقا دحي كوهل عيه وإميكا كسي دو مدبلة أيا سابين تيسا عالم كو إدل إميكا أي قارتي ما أهن أوكلية لك دقالها قارهن معيشة كلا دوان iyo sicirka shidaalka laakiin saameyntu waxay tahay xulafooyinkii iswadan jiray oo kala dhaqaaqay gaar ahaan xulafadii reer galbeedka ee NATO waxaase sidoo kale ku lamaasan cabsida laga qabo dagaalkan in loo adeegsado hubka nuclear-ka ruushku saacadihii la soo dhaafay waxay ka digeen dagaalkan suurtagal inay tahay inuu noqdo dagaal nuclear la isku adeegsado Iran waxay dagaal kula jirtaa laba quwadood oo ku hubaysan hubka nuclear-ka kuwaasi oo loodin waayay awoodda iska caabinta ah ee Iran waxaana laga digayaa haddii Washington iyo Tel Aviv dagaalkan ay ku guuldareystaan oo lagu jabiyo suurtagal inay tahay inay isticmaalaan hubka nuclear-ka haddaba warbixintan si gaar ah waxaynu ugu eegaynaa dagaalka Israa'iil iyo Mareykanka ee ka dhanka ah Iran 2025 ilaa 2026 imika soconaya cawaaqibta ka dhalanaysa ujeedooyinkiisa xawaarihiisa ujeedada laga leeyahay iyo sidoo kale waxaynu eegi doonaa arrimaha ku xeeran sababaha keenay colaadan macluumaadkaasi oo idil ayaynu barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa Maxamed Cabdi ayaa qadka ku jira waxaana warbixintan ku eegaynaa bahda HBN ayaa waxay ku samaysay baaritaan iyo raad raac saameynta dagaalkan uu ku yeeshay caalamka si gaar ah ilaa iyo 9 wadan Maxamed Cabdi ayaa soo jeedinaya amuurtan Maxamed maxay warbixintan ku bilaabanaysaa dagaalka Israa'iil iyo Mareykanka ay 28 February ku qaadeen wadanka Israa'iil wadanka Iran ayaa ka dhashay muddo 40 sanadood ah iyadoo oo ay socotay xiisad la xiriirta barnaamijka nuclear-ka Iran gantaaladeeda bolistikada ah iyo doorka ay ku leedahay gobolka bariga dhexe iyo xuduudda Iran oo sii balaaranaysa 2015 ayaa heshiis lala gaaray wadanka Iran oo lagala hadlay barnaamijka nuclear-ka waxaa ka qayb qaatay 5 dawladood ee ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo wadanka Jarmalka heshiiskaasi la gaaray ayaa 2018 madaxweyne Donald Trump xilligiis hore ayuu ka baxay waxaana bilowday wixii markaas ka dambeeyay is-aaminaad la'aan Iran ayaa dib ugu noqotay inay tayageliso barnaamijkeeda nuclear-ka waxa wixii markaas ka dambeeyay lagu eedeynayay inay ku dhowdahay in ay samaysato hub nuclear bishii June 2025 ayaa Israa'iil weerar gaadma ku qaaday wadanka Iran goobihiisa militariga waxayna dishay saraakiil waaweyn oo ciidan ka tirsanaa iyo saynis yahanado waxayna waxyeello gaarsiisay kaabayaal muhiim ah weerarkaasi ayaa Israa'iiliintu hogaamiyaashooda waxay ku sheegeen inay muhiim ahayd si hoos loogu dhigo awoodda nuclear-ka ee wadanka Iran dowladda Mareykanka iyo Israa'iil ayaa February 28 2026 weerar wada jira mar kale ku qaaday wadanka Iran ayagoo ku sheegay ahdaafta ay u dan leeyihiin inay tahay in ay burburiyaan barnaamijka nuclear-ka ee wadanka Iran howlahooda iyo shaqadooda gantaalada inay hoos u dhigaan in hogaanka Iran la bedelo wixii markaas ka dambeeyana waxaa bilowday dagaal faraha la isaga gudbay oo u muuqda in marka dambeysa uu sii balaaranayo isla markaasna gaaray Israa'iil marka laga reebo 9 dal oo kale oo ka tirsan wadamada Carabta ee dariska la ah wadanka Iran waa gartay Maxamed waan fahmay bal daawadayaasha waxay u sharaxdaa markaa maxay tahay ujeedada dagaalkan ee Mareykanka iyo Israa'iil Mareykanka iyo Israa'iil ayaa ku andacoonaya ujeedada ay dagaalkani ka leeyihiin inay tahay inay burburiyaan awoodda ay Iran ku samaysan karto barnaamij nuclear ah Iran weligeed leedahay ayay sheegaysaa barnaamijkeedu waa mid nabad ah oo koronto lagu dhalinayo iyo arrimo
rayid ah keliya loogu talagalay, laakiin waxay ku andacoonayaan Israa'iil iyo Maraykanka inay ka hor istaagayaan waddan cadow nagu ah inuu hub nuclear samaysto, oo ay Iiraan ku tilmaamayaan inay burburiyaan barnaamijka gantaalada bulistikada ee waddanka Iiraan iyo kaabayaasheeda militariga oo khatar ku ah siday hadalku u dhigayaan amniga gobolka bariga dhexe, iyo in la daciifiyo Iiraan inay awood u yeelato inay noqoto awood weyn galgalna ku yeelato saaxiibadeeda ay hormuudka u tahay sida ururka Xisbullah iyo ururada kale ee Ciraaq iyo Yemen iyo Falastiiniinta ka dhex jira. waxa ugu muhiimsan ayaa lagu sheegay in hadafka ugu weyn ee Maraykanka iyo Israa'iil ay lahaayeen in aynan ahayn mid midaysan. Israa'iil mudnaanta waxay siinaysaa inay hoggaanka Iiraan iyo dowladnimada Iiraan inay afgambiso, xukuumadda la bedelo, halka Maraykanku hadda markii dagaalka la isku riiqday uu awooddiisa saarayo istiraatiijiyad military iyo mid nuclear khatar ah ayaa kasoo foodla ayuu leeyahay Iiraan. In aaraahda Israa'iil iyo Maraykanka ay hadda iskhilaafto waxa ay muujinaysaa sida ay xusayaan warar ka soo baxaya ciidamada sirta Maraykanka in Iiraan aynan khatar ku ahayn caalamka, laakiin ay tahay Maraykanka inay khatar ku ahayn ay tahay arrin la abuuray. waa gartay. marka sidee dagaalku u socdaa marka la eego dhanka militariga? Maraykanka iyo Israa'iil weerarkan gaadmada ay qaadeen ayay ugu magacdareen howlgalka carada weyn, waxaana uu ku bilowday duqeyn xagga cirka ah, gantaallo in lala beegsado xeryaha militariga ee waddanka Iiraan iyo barnaamijyadeeda nuclearka ah iyo goobaha taliska u ah militariga iyo ciidamada ilaalada kacaanka ah iyo goobo kale oo fara badan oo la sheegay in lagu xiriirinayo wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Iiraan. Dowladda Maraykanka ayaa isticmaashay gantaalada Tomahawk loo yaqaano, diyaaradaha dagaalka, diyaarada daroonis ah. weeraradaas oo dhan waxaa lala wadaagayay oo isla qaadayay Maraykanka iyo Israa'iil. Hogaamiyihii ruuxiga ee waddanka Iiraan iyo hogaamiyaal kale oo ka tirsanaa taliska militariga waddanka Iiraan iyo ciidamada ilaalada kacaanka ah ayaa weerarkii ugu horreeyay ku dhintay. Iiraan falcelintii ay ka bixisay weeraradaasi iyo gantaaladii bulistikada ahayd iyo diyaaradaha droniska ah oo ay ka mid yihiin meelaha lala beegsaday xarumihii uu ku lahaa waddanka Maraykanka, wadamada dariska ah iyo saldhigyadii militariga. waxaa ka mid a meelaha Iiraan beegsatay ciidamada badda maraakiibtoodii oo uu ka mid yahay markabkii weynaa ee USS Abraham Lincoln. haddana waxaa soo baxaysa Gerald Ford asagana inay waxyeelo gaartay. Iiraan jawaabteeda ay la beegsanayso saldhigyada militariga ee gacanka ku yaala iyo kaabayaasha gobolka bariga dhexe ku yaala ee danaha u ah Maraykanka iyo duqeynta joogtada ah ee Israa'iil ku socota. Israa'iilna dhankeeda waxa ay sheeganaysaa inay duqeyso gudaha waddanka Iiraan. haddana waxaa moodaa dagaalka in uunan lahayn madax la qabto. waa gartay. waayahay maxamed, dagaalku markaa ma ku fiday meelo ka baxsan goobaha furinta hore ee dagaalka ama goobaha dagaaladu ay iminka ay ka socdaan? dabcan ha, dagaalkan Maraykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen waddanka Iiraan iyagoo oo aanan ka fekerin saameynta uu yeelan karo ayaa hadda waxa uu ku fiday gobolka. Iiraan ayaa ku hajabtay in ay xataa lacag ku soo rogayso maraakiibta maraysa marinka Hormuz oo ah dhabbe biyood muhiim u ah ganacsiga saliidda caalamiga ah oo la sheego 20% saliidda caalamka iyo gaaska inay halkaasi maraan. gantaallo iyo diyaarado daroonis ah ayay la beegsatay wadamo 9 oo daris ah oo kulligood Caraba iyo Israa'iil
waxaa sidoo kale dagaalka qayb ka ah maleeshiyaad sida xisbullah oo kale ah iyo ururo ka jira waddanka ciraaq oo iiraan garab siinaya nidaamkii difaaca cirka iyo ka hortagga gantaalada ayaa hadda howl adag ku noqotay marka la fiiriyo xaddiga gantaalada soo dhacay iyo diyaaradaha droniska ah dagaalkii ayaa baxad ahaan iyo taya ahaan dardar galay haddana waxaad moodaa in ay jirto cabsi ah in dagaalka laga yaabo inuu ku ballaarto wadamada gacanka iyo awoodaha waaweyn ee caalamka dadaalkii diblomaasiyadeedna hadda waxaad moodaa inuu miriqsan yahay oo meel wax laga bilaabo lalayahay oo maraykanka mar walba uu sheeganayo in wadahadal la gelayo iiraanna daqiiqada ku xigta inay leedahay wax wadahadala oo maraykanka lala galay laga soo bilaabo markii uu dagaalka bilaabay 18 bishii lasoo dhaafay ma jiraan taas ayaa waxay ka dhigtay caalamka wadamadiisa inay isha ku hayaan maraykanka hadallada isdhaafdhaafsan ee madaxweynahooda ka soo baxaya iyo iiraan sida ay u maareynayso inay iska caabiso oo waddan sheegta inuu yahay waddanka adduunka ugu awood weyn waa gartay dhanka aynu ka eegna saamaynta marka dagaalkan uu ku yeeshay ama saamaynta bini'aadantinimo iyo dadka rayidka maxay gaarsiisantahay dhibaato weyn ayaa dadka soo gaartay dagaalkan kumanyaal dad rayid ah ayaa dhintay dhaawacmay hay-adda laanqeyrta cas ee waddanka iiraan waxay sheegaysaa 82,000 oo dhisme inay burbureen lixdameeye in ka badanna ay yihiin kuwa rayida iskuullo isbitaallo iyo goobo kale oo rayida inay ku jiraan duqeymaha inta badan waxay ka dhacdaa bay leeyihiin goobaha dadka rayidku degan yihiin sababtoo ah goobaha dowladdu leedahay waxaa lagu difaacayaa xagga hawada kaabayaasha rayidka ayaa waxyeelo soo gaartay dhinaca Israa'iil magaalada Tel Aviv iyo magaalooyin kale Haifa Rashrash Damuna iyo magaalooyin kale ayaa waxaa la leeyahay duqeyn joogta ayaa ku socota magaalooyinka aadka duqeyntooda ay ugu badan tahay marka laga gudbo duqeynta loo geysanayo kaabayaasha militariga goobaha shidaalka goobaha korontada xafiisyada dowladda ciidamada sirta ciidamada warshadaha hubka sameeya in dad badan ay ka qaxayaan meelaha bartamaha Israa'iil ah oo dadku ku badan yihiin oo ay u qaxayaan dibadda qaar badan ayaa doomo u raacaya Qobrus qaar baabuur iyo basas ayay raacayaan oo ay u gudbayaan dhinaca Masar qaar waxay u gudbayaan dhinaca Urdun waxaadna moodaa qasaaruhu inuu mar ka dambaysa sii ballaaranayo dad badan ayaa ku barakacay dagaalkan labada dhinacba wadamada dariska ayaa sidoo kale dagaalkani uu saameyn ku yeeshay oo xeriyihii militariga ee Maraykanku uu ku lahaa ayaa waxyeelo gaartay iyo hoteelo iyo goobo kale oo rayid ah hay-adaha caalamiga ah oo ay ku jiraan qaramadii midoobay ayaa digniin ka bixinaysa dhibka rayidka gaaraya inuu sii ballaaranayo haddii dagaalkan uu sii ballaarto oo kaabayaasha biyaha iyo shidaalka haddii la duqeeyo in xaaladdu ay gacanta ka baxayso dhinacyadoo dhanna waxaa laga dalbay inay dagaalka joojiyaan laakiin uma muuqata in ay u helan yihiin in dagaalka joojiyaan waa gartay waaya haddaynu markaa dhinac kale ka eegno maxay yihiin caqabadaha ay wajahayaan Maraykanka iyo Israa'iil ee dhanka dagaalka marka laga gudbo Maraykanka in uu leeyahay awood aad u ballaaran Israa'iilna ay ka hesho taageero badan oo xagga militariga waddanka Maraykanka oo agabka ay isticmaalayso ay ku jiraan diyaaradaha Maraykanka oo casriga ah iyo gantaalada Maraykanka labadoodaba hadda waxaa soo food saaray caqabado waaweyn oo istiraatiijig ah iyo
sidii ay u maareyn lahaayeen gantaaladan faraha badan leh ee ku soo daadanaya goobaha ayaga muhiim ku ah ama xeryo military ha noqdaan oo Maraykanku ku leeyahay wadamada gacanka ama ha noqdaan kuwa Israa'iil gudaheeda ku yaala iyo kaabayaasha kale nidaamka difaaca cirka oo ay ka mid yihiin THAAD oo Maraykanku leeyahay ayaa waxaa leeyahay rasaastii ayaa sii dhamaanaysa dagaalka hadduu sii dheeraadaba marka la fiiriyo xaddiga gantaalada soo dhacaya kaydka la hayo difaaca cirka ayaa waxaa leeyahay iyo colaada socota isuma dhigmaan waxa weeye hub fara badan oo difaaca ayuu Maraykanka iyo Israa'iil ay isticmaalayaan juqraafi ahaan wadanka Iiraan waa wadan aad u baaxad weyn militarigiisa agabkiisa militariga ayaa aad u baahsan oo u ogolaanaya duqeynta ilaa hadda loo geystay waxyeeladeeda Iiraan gudaheeda lagama dareemin Iiraan falcelinteeda ayaa muuqata markii duqeyn loo geystaba duqeyn ayay geysanaysaa waxaana hadda socda weerar iyo weerar celis labada dhinacba militarigooda waxaa ka muuqda in hawsha ay ku jiraan ay tahay midba midka kale siduu u wiiqi lahaa Iiraan waxaad moodaa hadda inay la qabsatay dagaalka Maraykanka iyo duqeyntiisa maalinta ka dambaysa inay la imaanayso hub cusub oo khatara sida gantaaladan firdhiya oo kale ah oo dagaalka intiisa hore gantaalo duqa ayay isticmaalaysay si nidaamka difaaca cirka ee Israa'iil ay u daciifiso iyo wadamada kale waxaadna moodaa in hadafka Maraykanka iyo Israa'iil ay hadda kala qaybsameen cadaadis inuu ka bilowday gudaha Maraykanka lagu xakameynayo dagaalkan oo la weydiinayo madaxweyne Trump in istiraatiijiyad uu uga baxo dagaalkan uu leeyahay Israa'iilna hadda waxaad moodaa ayadana culays weyn inuu ka hayo falcelinta ka timid wadanka Iiraan ee xanuunka badan sida hadalka loo dhigay waa gartay sidee marka falcelinta iyo diblomaasiyaddu ay u saameynayaan dagaalkan dadaalka diblomaasiyadeed ayaa ah midaan isu dheelitirnayn dowladda Maraykanku waxay soo jeedinaysaa xabad joojin hindisyaal la xiriira Iiraanna mar walba ku gacan saaraysaa bedelkeedina waxay dalbanaysaa in Maraykanku u ogolaado in marinka Hormuz ay Iiraan u madax bannaan tahay magdhowna inuu bixiyo iyo qodobo aan u cuntamaynin Maraykanka 15 qodob uu soo gudbiyayna sidoo kale Iiraan waa diiday xataa inay dhugato ama fiiriso ama daraasayso wadamada gobolka iyo awoodaha caalamka sida Shiinaha iyo Ruushka iyo wadamada gacanka ku yaala iyo Masar ayaa kulligood dalbanaya in xabad joojin la gaaro iyo wadaxaajood la galo hase ahaatee waxaad moodaa dagaalka inuu dhaqaalihi caalamka saameeyey oo ascaartii saliidda ay kor u sii kacayso saamiyadii suuqana ay kor u kacayaan walwal caalami inuu jiro in laga yaabo in arrintani militariga dagaalkan labada dhinac in uu faraha ka baxo keliya maaha ee inuu dhaqaalaha caalamka saameyn weyn ku yeesho iyadoo sicirka saliidda hadda uu aad kor ugu kacay carqaladeeyana habsamo socodkii ganacsiga caalamiga ah waa gartay haddii aynu ka eegno dhinaca kale maxay yihiin markaa saameynada kale ama dhanka saameynta siyaasadda ee arrimahani ay ku yeesheen cawaaqib ayuu caalamka iyo gobollo badan iyo gobolka bariga dhexe ku yeelanayaa dagaalkani wuxuu carqaladeynayaa suuqyadii saliidda iyo goobihii saliidda laga soo saari jiray wuxuuna khatar gelinayaa marinka Hormuz oo ah goob saliidda caalamka 20% ay marto waxaa sidoo kale uu burburinayaa isxulafaysiga reer galbeedka oo waxaad moodaa hadda danahoodii militariga inuu kala qaybsamay wuxuu keenayaa khatar ah in isbedel uu ka yimaado dagaalkan oo dagaalku u noqdo mid la isku riiqdo oo muddo dheer socda halkii Maraykanka uu door bidi lahaa dagaal gaaban oo khasaaro badan u geysta Iiraan dadka la fuqurayaasha ayaa digniin ka bixinaya iyadoo aanay jirin istiraatiijiyad qorshaysan
oo isku dubridan oo cad oo dagaalkan looga baxayo ayaa madaxweynaha Mareykanka iyo Israa'iil ay dagaal wada jira qaadeen colaadanna hadday sii socoto oo ay bilo gaarto waxay abuureysaa xasilooni darro gobolka bariga dhexe ku timaado iyo meelo ka fogfog saameyntaasna waxaa laga yaabaa in ay qof walba taabato oo adduunka ku nool ama cunnada ha noqoto ama wax soo saarka warshadaha ha noqoto ama gaadiidka ha noqoto ama ha noqoto bay'ada oo ay ka mid tahay xilliyada qabow wadamada Yurub waxaa laga isticmaalaa gaas oo guriga lagu kululeeyaa wadamada kululna waxaa la isticmaalaa koronto oo guryaha lagu qaboojiyaa iyo mukeyfyo cid walba oo caalamka ka mid ah ayay si toos ah iyo si dadbanba u saameynaysaa colaadan bariga dhexe ka socota waxaana muuqata Mareykanka iyo Israa'iil inay dabool ka qaadeen dagaal aynan filaynin in uu saan u xumaanayo. waa gartay maxay markaa maxamed warbixintu ku soo gabagaboobaysaa dagaalkan Mareykanka iyo Israa'iil ka dhanka Iran ilaa ay hadda waxaad moodaa inuu howlo military ku kooban yahay laakiin colaadan wajiyo badan ayay yeelanaysaa oo ka mid ah xagga juqraafik ahaan siyaasi juqraafiyeedka ayay saameyn ku yeelanaysaa walwal weyn ayaa jira oo la xiriira shidaalka caalamka waxaa socda dadaalo fara badan oo diblomaasiyadeed oo la rabo dagaalka in lagu joojiyo laakiin cid dhag jaqal ugu siinaysa oo lama arko maadaama laga gaabsaday in la cambaareeyo ciddii dagaalka bilowday oo ah Mareykanka iyo Israa'iil halka inta dal la ogsoon yahay ee dagaalkan cambaareeyay waxaa lagu sheegay Mareykanka dagaalkan uu weerarkan u qaaday waxaa cambaareeyay Shiinaha iyo Ruushka iyo golaha ammaanka Soomaaliya oo markaasi ku hadlaysay magaca dalalka Afrika iyo oo qoraal laga soo saaray golaha midowga Afrika oo lagu cambaareeyay dagaalka jeedisay cid kale oo wax ka sheegtay ma jiro dagaalkaasi hase ahaatee Israa'iil iyo Mareykanka labadoodaba hadda waxay raadinayaan sidii awoodda istiraatiijiyadda Iran hoos loogu dhigi lahaa oo looga hor istaagi lahaa hubka nuclearka Iran inuu ballaarto ama ay samaysato laakiin sidii ay ku midayn lahayn hadafkooda ayaa caqabado waaweyn ka jiraan Iran iska cabinteeda xoogga leh ayaa caqabad weyn ku noqday Mareykanka oo xaaladda sii mirqisay dagaalkan oo Mareykanku islahaa mid kooban oo dhaqso ah ayaa hadda wuxuu noqday in uu ku jiro bil ku dhawaad ama wiigii afraad u galay dagaalkanna hadda wuxuu abuuray khasaare weyn oo bini'aadamka soo gaartay ama ha noqoto dhanka Iran ama ha noqoto wadamada Carabta iyo Israa'iil khatartana laga wada baqaya waxay tahay dagaalkani dagaal goboleed inta dhaafo inuu dagaal caalami noqdo dadaalka diblomaasiyadeed iyo dhexdhexaadinta caalamkana hadda waxaad moodaa in labada dhinacba inuu u dhaaga duleelin laakiin sida ay u badan tahay dagaalkan cid qiyaas karta lama yaqaano siduu ku dhammaan doono iyo cidda dhexdhexaadin doonta wadamo badan oo waxaa jira is-sharaxay oo raba inay wax dhexdhexaadiyaan hase ahaatee Iran ilaa ay hadda uma heelana in ay nabad qaadato hore ay u digtay waxaa la yidhi adkaysi hore laaw ama afeef hore laaw ama adkaysi dambe lahaw Iran hore ayay ugu sheegtay Mareykanka iyo Israa'iil hadday dagaalka bilaabaan cidda dagaalka dhamaynaysa in ayada ahayn hadda waxyaabaha soo naasa cadaaday waxaa ka mid ah maraakiibta loo ogolaanayo inay marinka Hormuuz maraan inay lacag ka qaadayso $2 milyan ayaa la sheegayaa ma aha dollar in lagu bixinayo lacagtaas waxaa lagu bixinayo yuanka wadanka Shiinaha waxaadna moodaa inay culays weyn ku hayso wadamo badan oo xulafo ah wadanka Mareykanka marin lacag laan lagu mari jiray hadduu lacag noqdo waxa weeye saameyn ayuu ku yeelanayaa ganacsiga caalamiga وهجاك محمد آد بعض ما سنتهي دعوة ياشنا هوي ما سيهنتا أيام كسو جبنا حلقة تضبط كان برامج كأقوني أوجال
daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgeli jimca mubaarak